siyaasiga cali maxamed yuusuf cali guri oo qaybo ka mid warfideenka kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu ku gacan saydhay doorashada maalinimadkii shalay loogu doortay Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraa inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland. dalka waxaan ka bilaabaa ilaahu aqoonna ha igu cadaabin eexna ha iiga tagin. shalay waxaa is doortay 5 nin oo komishankii cusbaa ka mid ah waxaanay u doorteen gudoomiye shantoodu Cabdirashiid Riyaraa oo sidaan ugaan hore u sheegay siyaasi caan ah oo la wada yaqaan oo xisbi gaar ah ku suntan ah. Cabdirashiid Riyaraa anigu waxaan u arkaa miino loo soo xambaariyay madaxweynaha ka u soo xambaariyeyna ma ahayn nin ka talinayay wanaagga iyo sharafta iyo karaamada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. buurmadow ayaa ka hadlay boqor buurmadow maalintii hore way weydiiseen jawaabtiisa waan ka muqortay laakiin maanta ka muqoran maayo. wuxuu yidhi sankaa idin daloola in Cabdirashiid Riyaraa la aqbalo waanu ogaa in gudoomiyahana dee markaa uu noqonayo. haddaba anu mid qurun baan u sheegayaa waddanka Soomaaliland la yidhaah mar dhacayso komishan uu hogaaminayo Cabdirashiid Riyaraa oo dalkan doorasho ka qabanaya ninka sanka kaga mudaya waxow waa adiga iyo dee itaalka waayo dadka tan ka soo taliyey kamay talinayn ma aha wanaagga Muuse Biixi ee kamay talinayn midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliland oo aynu ognahay labadii sanadood ee ugu dambeeyay wax si kala socday mooyaane inaanay jirin wax isu soo socday. arrintan haddii ay sidaa oo buurmadow yidhi noqoto taasi macnaheedu wuxuu noqonayaa in guushii kulmiya iyo guushii Muuse Biixi uu madaxweynaha ku noqday ay gebi ahaanba noqoto bilowgii dhammaadka Soomaaliland oo aanu jiri doonin madaxweyne Soomaaliland uga dambeeya Muuse Biixi. Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV Soomaali Cable Hargeysa.